إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كبيرا. أما بعد، waxaynu ka bilaabaynaa suuratu lmu'minuun bilowgeeda. suuradda la ydhaha qad aflax waa suuraddii 23aad xagga tirada suuradaha qur-aanka kariimka marka la eego, oo qur-aanku waxa uu badan yahay qaybtan hoose ee 15 jis ayaa wixii ka hooseeya kahfi ayuu u badan yahay. suuradihiisu xagga sare waa yaryihin. suuraddu culimada islaamku waxay isla waafaqeen inay tahay suura makiya, suuradaha makiga ah ee maka kusoo degay. aayadeedu waa 118. suuradda marka la eego sidaa ka muuqanaysa magaceeda, suuratu lmu'minuun, mu'miniinta suuraddeeda, jawiga iimaaniga ah ayaa aanay suuraddu ka bixi doonin. iimaanka iyo wixii ku xeeran, iimaanka oo ah rumaynta la rumaynayo wixii laynagu waajibiyey inaan rumayno ee arkaanuliimaanka ahaa. waxa aad arki doontaa iyadoo ilaahay uu ka warrami doono xaqiiqada iimaanka iyo waxa uu yahay, iyo iimaanka iyo midhaha laga goosto ama faa'iidooyinka laga helo, ama iimaanka iyo dadka ku sifaysan ee tusaalaha ku ahaa nolosha, iimaanka iyo kifaaxa loo soo galay, halganka adagee loo soo maray noloshan, iimaanka iyo adiladiisa, daliilada muujinaya iimaanka, abuurkeenna, abuurka caalamkan, abuurka xayawaanaadka, abuurka nabaadka, noolaynta dhulka, waa daliilada iimaanka. iimaanka iyo qofka ka hor yimid waa shubuhaatun xawla aliimaan. dadka mu'miniinta ah dad baa dee ka hor imanaya oo qur-aanku ka warrami doonaa, shubuhaad bay soo aroorin doonaa. waa maxay kan? waa bashar idinkoo kala una, oo wax adduunyaha uu taaba ma jiro, oo tilmaamihii madaxtinimada ma leh. shubuhaad badan baa la soo aroorin doonaa. ajwibadeeda, siyaabaha looga jawaabayo waxyaabaha madmadowga ah ee gaaladu ay ku doodi doonaan. waxa suuraddu marka aanay ka bixi doonin iimaanka iyo jawigiisa ah guud ahaaneed. waxa ilaahay uu ku bilaabay taa shucuurka uu yeelanayo qofka muuminka ah ayaad arki doontaa. aladiina hum qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun. goormuu qofku khushuuc yeelanaya? waa marka dee uu muumin yahay. mid kale dee khushuucba ma lahaba. gebagabada suuradduna iimaanka ah iyo aahaarta uu ka tegayo raadka uu ku leeyahay fii xayaati alfardi wa fii xayaati aljamaaca, qofka iyo bulshadaba ayaa aynu arki doonaa, iyo naxariista lagu helo. waqul rabbi ikfir warxam wa anta khayru raaximiin. ilaahay oo dembiga noo dhaafo noo naxariiso, cid naxariisata adiga ayaa u khayr badane. gebagabadaasay suuradda ku dhammaanaysa oo sheegaysa raadka u weyna iimaanku u leeyahay adduun iyo aakhiraba waa raxma min allahi subxaanah. ilaahay la rumaynayay inuu kugu deeqo naxariis aad ka hagar baxdo oad ka hirqato. wamaa axwajanaa ilaa raxmat illaahi subxaanah. maxay inooga baahi badan naxariista ilaahay? dee marnaba kama maarmayno. qur-aanku markuu sifooyin sheego cid ku ammaano
dee sheeko laguu sheegaya maaha cidda la doonaya adiga ah cidda laga doonaya sifooyinkaa inay xaqiijisaa waa adiga waa qaybahan hore aayaadkan hore 10ka ah ayaa ilaahay u taaka ka warramaya qur-aanku wuxuu haddana bixinayaa qaacidadaa guud markuu bixiyo namaadij tusaalayaal dadka mu'miniinta ay lahaayeen oo iminka tani waa sifaad guud mu'miniin baa liibaanay kaa sameeyo kaa simeeyey marka qawaacidda caamka iyo sifooyinka mu'miniintu ay leeyihiin oo aayaadkan ilaahay ku sheego namaadij buu bixinaya namaadijka waxaynu uga jeednaa tusaalayaal dad tusaale ku ahaa iimaanka wanaagsan qisada nebi nuux baa ilaahay uu ka bilaabaya iyo ambiyada ka dambeeya qad aflaxa almu'minuuna buu ilahay yidhi waxaa dhabnimo liibaanay mu'miniinta aladiina kuwii baa liibaanay hum fii salaatihim khaashicuun markay salaadooda ku jiraan ilaahay bay khushuucsan yihin waaladiina kuwii weeye hum iyagu cani illagwi mucriduun waxa bilaa macnaha way ka sii jeedsadaan waaladiina waa kuwii mu'miniintu hum iyagu lizakaati faaciluun sakaday fuliyaanay sameeyaan waaladiina kuwii weeye mu'miniintu hum iyagu lifuruujihim cawradoodii iyo alaabtooda hoose iyo xubnahooda taranka xaafiduun way ilaaliyaanoo xaaraan bay ka ilaaliyaan ilaa calaa aswaajihim ooriyahooda mooyaane aw maa malakat aymaanuhum ama gacmahoodu addoommaha ay milkiyeen mooyaane kuwaas waa u xalaal fa innahum hayru maluumiin waa kuwoon lagu canaananaynin mu'miniintu la dhaqanka ooriyaha iyo addoommaha faman ibtaqaa qofka raadiya wax ka daya waraa'a daalik intaa wixii sii dhaafsan fa ulaa'ika hum ulcaaduun kuwaas waa kuwa xadgudbay waaladiina kuwii weeye mu'miniintu hum iyagu liamaanaatihim ammaanooyinka ay gacanta ku hayaan ama ka mas-uul yihiin iyo wa cahdihim ballamahooda raacuun way ilaaliyaan oo way raacaan waaladiina kuwii weeye mu'miniintu hum iyagu calaa salawaatihim salaadahooda ilaahay ku waajibiyey yuxaafiduuna way ilaaliyaana ma dayacaan ulaa'ika kuwa intaasoo tilmaamood leh qaaliga ahi hum iyaga unba alwaarisuun kuwa dhaxlayaashu waa iyaga maxay dhaxlayaan haddaad isweydiisay aladiina kuwii weeye buu ilahay yidhi yarihuuna alfirdows jannada qaaliga ee firdows la yidhaahdo ayay dhexlayaan hum iyagu fiihaa jannadaa dhexdeeday khaaliduuna weligoodba ku waarayaanoo wax ka saarayaa jirin sidaasaa ilaahay uu sifaadkii mu'miniinta halkan ugu tilmaamay muuminka la doonaya inuu sifaadkan qaataana waaba adigaba cid kaleba ha usii riixin qarnigii horena ha ku riixi qarniga dambena ha ku riixi culimo iyo cuqaal kale toona ha ku riixi adigu iska bilowba ila qur-aanka waxaad u dhagaysanaysaa inuu ku anfaco dhaqan iyo akhlaaqna uu ku noqdo rasuulku sala allahu calayhi wasalam markay aayaadkani soo degeen sida riwaayo ay tilmaamayso axmed tirmidi nasaa-i ay wariyeen uu ku farxay rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mida buu nebigu intii uu loo waxyooday kadib ayaa asxaabtu waxay leeyihiin intuu na soo qaabilay buu gacmaha kor u qaaday isagoo ku ducaysanaya ilaahay ow noo siyaadiyo ha naga nuqsaamin ilaahay ow karaaman na siiyo hana dullayni ilaahay ow deeqdaada noo badiyo ha naga xirmaanin annaga noo dooroo cid kale ha noo dhaafin ilaahay ow na raali geli naga raali noqo annagana na raali geli markaa dabeedna wuxuu yidhi 10 aayadood baa laygu soo dejiyayoo laygu soo dejiyay imika oo qofka ku camal fale sidooda u fuliya jannada uu galay markaasuu suuraddan akhriyay rawaahu alimaam axmed fii musnadi watirmidi waannasaa'i wax ilaa looma sheegin xadiid waaya markaa halkaa waxa uu ku tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam shardiga ku xidhan sifooyinkan oo la helaa ama jannadan oo la dhexlaa shardiga ku xidhani waxa weeye dee iyadoo la oogo waayo nebigu waxau ihi man aqaamahunna dakhala aljanna qofka janno doonaya waa inuu sifooyinkan oogaa macnaha fuliyaa dhaqan ahaan u camalgeliyaa waxaa erayga qad oo suuradda ilaahay uu ku bilaabay marka uu ficilka maadi galo laba macnuu faa'iideeyaa bay idhahdaan culammada luqadu ficilka mudaaric marka uu galana laba macne ficilka mudaaric wuxuu faa'iideeyaa ima taqliil aw takfiir macnaa qad yajuudu ama qad yucطi albakhiil aw isakhi macnaa fara badnaan buu tusiyaa qad yajuudu albakhiil haddii la yidhaha waa taqliil ninka bakhiilka oo laga yaaba inu warwar wax bixiyo
وتقليل بفائدة قد يجود السخية دي لا قف كدقة بدني معناه نحن نقول إنه واحد بدن ببحية لكن مركب مضارع كشوا ماشي أو بدن هاي تحقيقية تقريب بفائدة سابعان تحقيق أنا بدن تقريب واحد قد قامت الصلاة وكذا الصلاة دي وين دواتي دوانشو لكن مركب فعل كما ضد كشوا حيو بدن هاي تحقيقها وسيدا إرجع لقد قرآن كأدو بدن مركب قد أفلح رب نمو يحقيق نمو ده اسكو جرئ waxa liibaanay dadka iimaanka ku sifaysan iimaankooduna iimaan sheegasho ma aha waa iimaan astaamo muuqda leh waa iimaan raad leh waa iimaan akhlaaqdi ka muuqanaya waa iimaan laga arkayo noloshii qofka iyo tii qoyskiisa iyo tii ilaahay uu xiriir kula lahaa iyo kii ummadda sifaadkana waxay isugu jiraan qofkii oo xaq siinaya ilaahay oo xaq siinaya ehelkiisa iyo waridiisa oo xaq siinaya naftiisa oo xaq siinaya ummadiisa afartaas ay isugu jiraan وانا سيسا حق إلهي وكولي واتادي آيات كانت كورا ميسا صلاة لغو بلابي صلاة لغو لمي وحق الله قفك وحا وصينا يا إيه الكيسي وحقي سينا يا وميد قول داف يقع عن داف لماح لكن وحي عدي إلهي وحلاليين ولا نغمه أيوكو يجيه بيد أخلاق دي سوى ناكسنتها ويا عفيفة هور دورصان ون حرام بوشاقين قفك نساقا هي وحا وكو يجيه هاي حقي ومدى سينا يا markaasa haday amaano tahay iyo haday ballan tahay mid walba uu fulinayaa meel loogu soo hagaago buu leeyahay qof miir qaba qof silanoo dawdara maaye waa qof shakhsiyad leh macnaa mistaaqiyada qofka shakhsiyadiisu waxay ku xidhan tahay sidoo amaanada u ilaaliyo iyo sidoo ballanta uga soo baxo ayaa shakhsiyada qofku ku xidhan hadii kala calaamad su'aal weyn baa saaran kala daanu cahdina lahayn ballanna lahayn لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ولا دان عهد لهين بلنا لهين marka halka waxaad ka arkaysaa sifooyin xaqi ilaahay xaqi ummadda xaqi ehelkiisa intiba u bixiyo qof yakii naftiisa marka lahu shakhsiya wa mistaqiyya qof jira oo loogu talagalay beelway qad aflaha almu'minun almu'min wa katalab marka saadabeetana sifooyinka ilaahay uu tahay subhanahu waxa uu soo horeeyay salaadii alladina hum fi salatihim khashi'un wama adraka ma salaadii arrinkeeda ka war de muumin baa ilaahay uu sifeynay markaas wuxuu ku bilaabay sifooyinkiisa u horeeyay inay tahay inuu yahay qof salaad sax waana lagu bilaabay waana lagu dhameeyay ilaahay alladina hum fi salatihim khashi'un khushuucdana culimada islaamku waxa ay leeyihiin waa qofka u soo jeeda salaadiisa qofka oo imika lacagta marka tirinayso soo kaaga ma baahna inaad u soo jeedo qofka kula hadla adigoo ku jira lacagta tirinteeda waxa tareega deegada hay mashquulin waan gadmanayaaye ama tiradan khaldayaaye ii kaadi baa tiraahdaa bal ii kaadi xisaabka ku jira khaldine ii kaadi ama tiran ku jiraaye hadii ay dhacdo inuu intii hore ku dhaaftay aad garan weyda tiradana dib baad u soo celisaa oo soo bilowdaa waxaad ku bilaabaysaa waxaad dadka isaga joojinaysaa waxaad doonaysaa waxaad tirinaysaa wuxuu yahay inaad ogaato waxa laga doonayaa waxaad tukanaysaa wuxuu yahay inaad ogaato markaasa بعض العلماء waxay soo naqilayaan ajma'a يروي العلماء أن العلماء أجمعوا على أن للإنسان ما عقل من صلاته قفك صلاتي سوحوا ليه وحوا اسمق ليه وحي وسوغا يبو صلاتي سليه وحي كلام ساغا غرانيا با امسا هايان ما فهميا صلاه هذا واحد لا وحي قرانيس وحي هذه ilaahay kula hadlays inta ragcadooda tukatay sunna iyo faral wixii aad akhriday wuxuu inaad kala garanayso khashi'un shuucdu waata waadigoon ilaahay ka xiriir furmanin salaada ilaahay ku xidhan subhanahu wa ta'ala qalbigaagu soo jeedo marka waa dhuuxa salaada hal macnaa waxay isweydiiyeen hal al-khushu'u min fara'id as-salati aw min fadaa'ilha khushuucdu waxay kamid tahay faralyaalka salaada mise waa fadaa'ilkeeda waxyaaba fadliga u kordhiya mise waa waxyaaba faralkeeda ma waa faralkeeda waa dhuuxeeda ودوحيدنا خاشعون وحويان أديقو إلهي كعبصانيا كجعلنا إلهي بات كعبصانيا عبصانيا وملاك لك عبصانيا ومد مع البقاء ومد مع الورولة ومد مع النعيشية تذكر هذه يجر مع مولدية ودنا وحا لوغا بقدا ولا معسين وبقى مع نعيشية ولا صعوبة لكن إلهي سبحانه وتعالى بقاها أتكبقانيسا ومد أتكجعشها سبحانه وتعالى خاشعون والذين عن اللغو معرضون صفات كمؤمنين وحوي
dad wixii laqwiya bilaa macnahean adduun iyo aakhiro faa'iida ugu jirin wakhti kuma lumiyaan laqwi waa maxay waa waxaan adduunyadaadana faa'iide ku lahayn aakhirana aan faa'iide ku lahayn macaash kaa soo galaya adduunyada ma jiro ajrina kama helaysi markaa kaasa halkaasaad iska dhigta macnaheed waxa way qofka mu'minka ah wakhtigiisa iyo tamartiisu way buuxaan wax badan uu ku maalgeliyaabuu u hayaa laakiin jaanisba uma hayo bilaa macno qofka mu'minka wakhti uma hayo oo xoog uma hayo oo xoolo uma hayo wax bilaa macno ah wuxuunaad isu eegtaa sifada aayadda iyo sifadeeda waaqiceen iyo balwaaqican aayaddu ka warramaysa isu eeg innagana shaqadeennuba waladiina hum fi lagwi mushtaqiluun waa kuwa laqwiga ka shaqeeya ayaad moodaa innagana arrinkeena kolkaad eegto qofku barsaaka marka uu soo toosay ee caawa uu seexanayo 12 saacadood ee maalinka habeenkiina qayb kaga daro war markuu seexanayo ha xisaabiyo oo horta wixii aad maanta waday talo maxay dani kugu jirtay oo soo tiri kulamadii iyo sheekooyinkii iyo dhaqdhaqaaqyadii iyo socodkii iyo wixii shidaal kaaga baxay wixii tabari kaaga bax waxba laga yaabaa wax yar bayna hesho wax faa'iido kugu jirtay hadda dadka qaarkood baa marka taa laga hadlayo waxay isku khaldaan danta caamka ah iyo danta gaarka ah markaas waxa laga yaabaa qofku inuu u fahmo danta caamkiina inaan ahayn wixii faa'iido ugu jirto dantiisa gaarka ahina ta faa'iidada ugu jirto danta caamka waa ka fadli badan bataada gaarka ah marka hadda tu caam waday wa tuslihu al-ibada wal bilad wa diin iyo dal iyo dad hagaajinaysa ha ajriba kugu jira dantaada gaarka ah bayaan laakiin ta laga hadlayaa waxa weeyaan qaacidada aynu siinay akhri adduunka toona wax faa'iido ka meelis walladina ma'a lagwi mu'radun والذين هم للزكاة فاعلون سكدوا دوا waxa dad kala saaray bakhayl iyo deeqsi waxa kala saaray way mu'min iyo munaafiq waxa kala saaray way qofka la xajaclada xun iyo qofka la xajaclada wanaagsan inuu qofku ummadda ka naxaya iyo inuu ummadda cadaw yahay inuu xoolahan ilaahay u ogol yahay iyo inuu ilaahay uba diidan yahayba waxa soo dhan waxa kala saaraya sakada taas dadka kala haadinaysa qof baa sida kale oo dhan u macaano markay maal tagtun qaraaraanaya waxa soo dhan waa waxyaabo lagu shaandhaynayo walladina hum li furujihim xaafidun waa dadkan shahawaadkoodii rabitaanadooda xidheeno rabitaankii maalka jacaylka sida isaga xakameeyeen rabitaankii hamadana way xakameeyeen xaaraan baanay ka xakameeyeen xalaal baanay ku ilaaliyeen marka farjigu waxa weeye xubnaha taranka ee rag iyo dumarba labadaba noqonayaan farj karagana waa lagu sheegay farjigu af carabiga waa meesha daloosha karag iyo dumarka labadaba waa lagu sheegay marka loo isticmaalo erayga marka dumarkii rag iyo qura ma aha laakiin dumarka laftigooda waa ku amaanay ilaalinta agabkooda iyo cawradooda ay ilaaliyeen ay xaraan ka ilaaliyeen marka arrinku ma aha kaliya inuu qofkan wixii ilaahay uu ku abuuray isku ilaaliyo oo aanu gudanin oo hamadiisu ay ku cabursanaato laakiin waa la fasaxay illa ala azwaajihim aw ma malakat aymanuhum waxa loo fasaxay meel xadidan ooriyahooda iyo adoomahooda labada xalaal weeye oo way ku gutaan baahidooda fa innahum ghayru maluumiina baa lagu macnaananayo kuwa oo qofku sawdkiisa iyo xaaskiisa waa ku gudan karaa baahidiisa adoomuhuna saas oo kale ahaayeen adoomahana islaamku uguma horreynin adoonsiga ee weligood bay soo jireen islaamkuna wuu daayay laakiin wuu wanaajiyay la dhaqankan iyo mucaamaladan hadduu islaamku iska dayn lahaa adoomaha dee arrin keligii ku xidhan maaha adoomuhu waxa weeye waxa dadka lagu soo qabto dagaalka gaalada laga soo qabto wey marka almucaamalatu bilmithli baa la yidhaahdaa caqliga iyo mantiqa labaduba way keenayaan caqli iyo sharci labadu waxay keenayaan cidda kaa soo horjeeda wixii ay kula mucaamaloonayso inaad adiguna kula mucaamalooto si ay u edabsan karto luqada ay ku fahmi karaysaa taas marka haddii muslimka wixii laga qabtana la adoomsado iyagoo wixii laga soo qabtana la sii daayo dee xabad barridi maana inoo qabtun bay odhanaya dadka baan addoommo ka dhiganaan yeelanne ila kuweenna way soo dayn doonaane laakiin kolka hadduu maxbuuq qabto adna aad maxbuus qabato hadduu mid addoonsado adiguna aad mid addoonsato hadduu mid daawaco adiguna aad daawacdo hadduu dilo adiguna aad disho wuxuu odhanaya dee aan isdayna kala macaashi mayne waa luqadda had iyo jeer in badan ay fahmi karayaan walaalkaa ka macaashi mayne aan iska dayna baa la odhanaya oo hebel iyo hebeloo qaaliya bay naga qaban doonaane dabeetna waa ta keenta in wax la isdhaafsado ummadaha isuguba naceebay waxyaabaha isku fahmaan war annaguna maxaabiis qaaliyaa naga haysaan idinkana qaar aad jeceshiin baanu idinka haynaaye bal aan isdhaafsanno laakiin islaamku waxyaaba badanoo addoomaha loo samayn jiray oo dhibaato ahaa baanu isagu samayninoo mucaamalo wanaagsan baa loo sameeyaa qofka addoonka oo xornimadiisaa la dhiiriyaa
oo sabab waxa lagu noqdaa inuu islaamo ummadda islaamka ku biiraba gaaladiiba ka maarmaba sida wanaagsan addoomaha loola dhaqmayo waxay keenaysay inay gaaladii laga soo qabtay kaba maarmaan iska islaamaan taasaa badnaydba baab imaka aynu waa ishaarowno fa innahum hayru maluumiin faman ibtaqaa waraa'a dalika fa ulaa'ika hum alcaaduun cidda waraa'a dalik intaa wax sii dhaafsiisan cidda doonta inay hamadeeda iyo baahideeda ku gudato oo dee ay sinaysato fa ulaa'ika hum alcaaduun kuwaas waa kuwa xadgudbay oo xaddii ka tallaabay marka ilaahay subxaana wa tacaala markuu addoommahan ku abuuray baahida iyo qariisada ragguna dumar u baahan yihiin dumarkuna ay rag u baahan yihiin ragguna dumar u baahan yahay baahidaa xikmaddeedu waxa weeye wallaahu aclam in bani aadamku sii tarmo dee haddii la isuba baahan waayo sidee loo tarmaya macerkaa dad ka soo dhalanaya mise warshaday ka soo baxaya dadku wuxuu ka soo baxayaa baahidan rag iyo dumarku ay dhexdooda gudanayaan dariiqo xalaalana ku gudanayaan waa dariiqo siidhka iyo bani aadamka ilaahay uu ku tarminayo iyo xayawaanada kaleba laakiin dariiqadaas baahidaa marka la gudanayo muu ka dhigin mid mudlaq ahoo sii daysan oo qofku dariiqadu doono uu gudan karo laakiin wuxuu ka dhigay si ay xurmo u yeelato si ay xuquuq u yeelato si ay u hagaagto si loo mahadiyo wuxuu ka dhigay xuduud buu yeelayoo shuruuc baa loo dejiyayoo taasuu kaga duwan yahay xayawaanka laakiin liiska xayawaankuunbuu insaanku ku biiraya gabadhuna ninkay aragtuun hadday la wado ninkuna tii ka soo horbaxdaba hadduu la wado maxay kaga duwan yihiin daayarada meelaha isku waxaynaya iyo dameerada iyo wixii la mid a xayawaanada sumidee ku jira waa sheeko saaxiibta kufaarta sheekada saaxiibka ee kufaarta waa liiskii xayawaanka laakiin liiska bani aadamku karaamada uu leeyahay bay ka mid tahay inuu sidaa ilaahay u dhigay labadaa dariiqo miduu ugu galmoon karo qofkii dumarka ahay waxyaabihii kale faman ibtaqaa waraa'a dalik waxay culimmadu markaa raaciyaan guur xalaala wixii aan ahayn masalan haddii qofkii uu nikaaxulmutca waxaan la yidhaahdo guurkii la diiday meheru shardiga miyuu ahaa kaasoo kale dee halkan kuma jiro xalaasha saa daraaddeed xaaraanta ku biiraya istimnaagii sidoo kale qofkoo biyi taranka iskaga keena dariiqa aan hagaagsanayn isna liiskan xaaraantu ku biiraya adraarta iyo dhibaatooyinka caafimaad uu leeyahay haddana ka sakowtan halkan lagu soo galaya waladiina hum balada sifooyinka sifo waliba waxay u baahan tahay sharax dheer tilmaan wal oo mu'miniinta lagu ammaanayba waxa ay waa xil weyn oo ummadda saaran oo cidda gudata ay mutaysatayna maan la siiyo waladiina hum liamaanaatihim wacahdihim raacuun waa sifada kaloo ilaahay mu'miniinta ku ammaanay ammaanooyinkooda iyo cahdigooda ammaanooyinkani dee waxa u horeeya iimaankii ammaanada koobaad ammaanatullaahi fii quluubi alcibaad waa iimaankii ilahay la rumaynaya subxaana wa tacaala waa ammaanadii diinta waa ammaanadii xilka la saaray ummadda iyo takaaliifta iyo cibaadada waa ammaanadii adiga ilahay idinka dhexaysa ammaanooyinkii ummadda mas-uuliyadihii iyo madaxtinimadii maalkii la ysu haynayay kullu dalik waa ammaanaat insaankii saaran marka ammaanadaas ayay ilaaliyaan raacuuna way raacaan qofka maanta waxa xoolihii loo diray qofka aanay ka lumin kana dayacmin kana goosmin bahalna ka cunin laakiin xoolihii sidii uu ku kaxeeyey subaxdii ku soo xareeyey waa raaci wanaagsan kaas marka raacuun ammaanadaasi qofka dayacayna dee liiskii muuminiinta uu ka baxaya ammaanadii guud ee ummadda iyo xilkii uu hay waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabi abidar la yidhahdo la hadlo wuxu uhi maad shaqo ii dhiibtid amba waa u yara hanqaltaagay wuxuu ihi ina abudarow daciif baa tahay ammaanooyinka noocana ma karaysa wainahaa amaana wainahaa khizyun wanadaamatun yowma alqiyaama waar waa ammaano waar waa dulli iyo wax laga murugoon doono maalinta qiyaamaha waar kari maysida iska dah imisaa isku qaaday abidar asxaabi muumin oo qaaliyabaabuu ahaaye imisaa isku rarayoo dabeetana la buubay oo la kacaakufay oo dad iyo dalba eeday allah inaga nabadgeliya wixii liita waladiina hum liamaanaatihim wacahdihim raacuun cahdiguna waa ballanta ilaaliyaan bal hadda eeg hadda u fiirsa aayadda ballanta ayay ilaaliyaan ballanta ilaahay la galanaya tae ummadda la galan dabcan taad ummadda la gashay ilaahay baad la gashay ballanta iska daa dad muslimiin ahoo iimaan idin walaaleeyay oo kaafirkaan lagaga bixi karin intaasoo daliilo qur-aan iyo xadiid baleba ka digaysa in gaal ballan lala dhigtay lagaga baxo waxaa la ilaalinayaa manhajkaad wadato iyo diintaad wadato waxaa la ilaalinayaa shakhsiyadaada waxaa la ilaalinayaa ummadda aad ku jirto intaasoo dhanba haddii cahdigu xumaado
dhaawac bay u geysanaysa dhaawac ayay u geysanaysa ilaahay baa subxaana wa tacaala taa ka digay waxa uu leeyahay waimaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa gaaladaa ballanta lahaydeen haddaad ka walaacdood ka warwarta inay ballanta ka baxayaan ay wax soo wataan ha khiyaamaynin laakiin fanbid ilayhim calaa sawaa iyadoo warku cad yahay warbaahinta u geli layguma hadleeyo ballantiiyo ka baxnaye waa inoo dagaal saas wey wa cahdihim raacuun dee muslimna iska deh waxyaabaha cajiibka ah ee sirta meesha ku jirtaa waxa weeye quluubta addoommaha wada socodkeeda ayay diinteennu ilaalisaa iyo kalsoonida ay isku qabaan iyo yuhuunta walaalkaa walaaltinimadiisu waxay ilaashan tahay inta aad wehelu dareemaysa ama inuu ku qadarinayo aad ku qanacsanta kalsoonidu waa shayga ugu qaalisa waxa ugu weyne dhaawacaa waa ballan darrada waxa ugu weyne kalsoonida aad ku qabto walaalka ama gabadhu ay ninkeeda ku qabto ama ninku gabadhiisa uu ku qabo ama waladku waalidka uu ku qabo waxa la isku og yahay oo la fuliyo waa arrinta quluubta ilaalisa wada socodkeeda waxa la isku og yahay iyo ballanta oo lagu kala baxana waa waxa dhaawace ee dila kalsoonida ummadda macnaheedu waxa weeyaan hebel waxaasuu kugula ballamay waxaasuu kuu ballan qaaday wuu oofin waayey agtiisa miisaan kama lihid adigana agtaada miisaan yuu ku yeelan ina kala kaxee wey aan ku kala tagna bay u dhigantaa marka labadaa la isu geeyo aan ku kala tagna bay u dhigantaa war halkanuu kugu imaan waayaba ku ballanta waxaasuu ku ballan qaado wuu kuu fulin waayey intaasoo jeer buu kaaga baxay macnaheedu waxa weeyaan inaanad miisaan agtiisa ku lahayn ka ku kalsoonaan shaydaankiina dee u dhex socdaa wacahdihim raacuun waaladiina hum calaa salawaatihim yuxaafiduun salaadahooda ilaaliyaan dii horena khushuuc bay tanna waa ilaalin way kasii caamsanta khushuucda ilaaliyaan arkaanta ilaaliyaan aadaabta ilaaliyaan shuruudda ilaaliyaan fadligeeda ilaaliyaan waqtigeeda ilaaliyaan ulaa'ika hum lwaariuun ulaa'ika kuwaasi tegay ee jiitay iyagunbaa dhexlayaal hum keligood ayaa alwaariuuna waa macnaha laga fahmaya tacriifu arafayn jumlada xagga hore oo mucarafa oo ismu ishaaraha iyo xagga dambe mucarafa iyo damiiru lfasli oo tawkiid faa'iidaynaya yufiid waxaa keliya cidda dhexlayaashaan u ogolahay inay jannadayda qaaligaa dhexlaan buu ilahay yidhi waa kuwa ah xidigaha taagana jiitay maxay dhexleen aladiina yariuuna alfirdows hum fiiha khaaliduun firdows waa jannooyinka meesha ugu qaalisanoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo inala talinaya wuxuu yihi marka ilaahay janno weydiisanaysa waa xadiidkii saxiixa ah fasaluuhu lfirdows fainahu aclى اljanna waawsaط اljanna wafawqahu alcarsh waminhu tufajaru anhaaru اljanna afar sifuu leeyahy jannooyinkuu udhaxeeya jannooyinkuu u sarreeya carshuraxmaanka baa ka sarreeya webiyaasha jannadoo dhan baa ka soo butaacaya ilaahay janno weydiista saluuhu lfirdows waxay isweydiinla maxay dhaxleen ilaan dhaxalku waxa weeye shay cid hore lahayd oo cid kale uga dambayso marka hadduu ilaahay jannada firdows siiyey dee muxuu dhaxalku noqonaya aayaddan oo qurina ma sheegaysa aayado badan ayaa tilmaamaya qadiyaddan dhaxalka ilaahay baa wuxuu yidhi isagoo ahlujannaha la hadlaya tilka aljannatu alatii ka warramaya tilka aljannatu alatii nuuriu min cibaadina man kana taqiya addoommaha iyaga qofka alla kacabsilaanu jannadaa dhaxal siinaa wa tilka aljannatu alatii uurihtumuuha bima kuntum tacmaluun jannadaa aad dhex mushaaxaysaan ee ku istiraaxaysaan waxa la dhaxal siiyey baa ilahay waxa laydinku dhaxal siiyey camalkiinnii waa camalkan la sheegay aayaad kusoo sheegay ayaa ku heshay xadiidka rasuulkaa fasiraya sala allahu calayh wasalam dhaxalkani waxa uu yahay qof kastoo bani aadama ilaahay wuxuu u diyaariyey laba meelood buu nebigu meel jannada ah iyo meel naarta ah marka uu qofku imaan yeesho ee camalkii lagu gelayo jannada uu sameeyo kaadhkeedii iyo miftaaxeedii uu qaato wuxuu gelayaa meeshiisii jannada in alliyaala intii naarta gashay meelihii ay ku lahaayeen jannada mu'miniintan jannada gashay ayaa dhexlaysa in alliyaala intii jannada gashay meelihii ay ku lahaayeen naartana waxaa dhexlaya kufaarta galay wanacuudu billaahi minha qof walba waxaa loo dhiibayaa mid yuhuudiya
ama nasraaniya kolkaasaa la leeyahay haadaa fikaakuka min annaar kan iskaga furo xaggan oo adiguna xaggan labadii boose xaggan qaado isagana labadii boose naarta gee waa ka ilaahay ku tilmaamay dalika yawmu taqaabun dalika yawmu taqaabun maalinkaasi waa maalinka wax la isdhaafsanayo laakiin la isa suldaarayo ee la isa sabaaxadaynayo ee macnaheedu kani waa mid la dagay miyaan la dagin aanu qabni iyo qarar waxa ku dhacay kedo wixii u liitay baa loo xambaariyay ka labadii meelooda naarta loo dhiibay ka labadii meelooda jannada helayna dee wuu guulaystay dalika yawmu taqaabun haddii qabni u dhici lahaayo wax la isdhaafsaday ninna ku liibaani lahaa ninna eedi lahaa halkaasuu qabnigaasi ka dhacay suuratu taqaabun ayaa ilaahay ku sheegay subxaanahu aladiina yariuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun oo nicmada aanad ku waaraynima nicma qur-aanku halkaasuu raaciyaa fiiha khaalidun fiiha khaalidun khaalidiina fiiha markaa khuluudkani wuxuu sheegayaa dabeecadda nicmada halkaa taal baa ka duwan dabeecadda halkan tan wuxuu doonaba ha hela qofka miyuu ku waaraya waari maayo warun baa ka hadhaya ama war xun buu noqon ama war wanaagsan qofna waari maayo mid walba warun baa ka soo hadha laakiin wax waaraya xataa ka inuu waaro u waasha le dad badanoo inay waaraan u waashay baa jiro wax walba bixiye ma waarayo dhegtumaa laga soo qabanaya halkaasi baa ilaahay waxa uu hum fiiha khaaliduun nicmadeeda waa laa maqduucatin walaa mamnuuca waynu soo aragnay sifaat almu'miniin ama raadka iimaanku uu ku leeyahay xayaatada mu'minka iyo mu'miniinta soo aragnay waa taa quruxda badan marka adilat aliimaan baynu qaadanaynaa daliilada muujinaya ilaaha la rumaynaya iyo awoodihiisa daliiladaa ilaahay wuxuu ka bilaabayaa abuurka nafteenna wuxuu ku xigsiin doonaa saad arkayso abuurka caalamka wuxuu ku xigsiinayaa nabaadka iyo roobka iyo wixii awoodihiisa oo dhanaa waa adilat aliimaan eeg walaqad khalaqna alinsaana dhabnimo waanu abuurnay baa ilaahay uhi bani aadam min sulaalatin min tiin dhoobo saafiya laga abuuray wax dhoobo ah dhoobada in laga soo saaray uma jacalnaahu waxaanu ka yeelnay duriye ubadkiisii nudfatan xoogaa yaroo kooban oo candhuufa fii qaraarin makiin riximka hooyada oo sugan la dhigay uma khalaqna nudfata candhuuftii yaraydna waxaanu ka dhignay calaqatan xoogaa xinjir ah fa khalaqna alcalaqata xinjirtiina waxaanu ka dhignay mudqatan xoogaa hilibah fa khalaqna almudqata xoogaagii hilibka ahaana waxaanu ka abuurnay oonu ka samaynay yadiina cidaaman lafo fa kasawna alcidaama lafihiina waxaanu huwinnay buu ilahay laxman hilib iyo muruqyo uma ansha'naahu uma intii abuurkaasi dhammaaday kadib ansha'naahu waanu curinay khalqan aakhara abuur kale fatabaaraka allah ilaahay baa xumaan ka hufan oo barako badan axsanu lkhaaliqiin cid wax farsamaysa isagu ugu wanaagsan uma intaa kadib dadow inakum idinku bacda dalik intaa la idin nooleeyo la idin abuuray kadib lamayituun way idin dhiman doontaa inaad dhimataan waa lagama maarmaan uma intaa dhimateen kadib inakum idinku yowma alqiyaama tubcauun qiyaamadana waa la idin soo noolayn sidan ilahay idinkaba u idiin nooleeyay maxaa ku kala saaraysaa waa kaas waa nolol iyo nolol macnaheedu waxa weeye intaasoo marxaladood buu insaankii maray markii la abuurayay yaa abuuray allah subxaanah waxdah cidina kama saacidin miyuu iska abuurmay am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun miyuu iska abuurmay insaankii isaga iyagaa is abuuray maya ilaahay baa abuuray subxaanahu wa tacaala aabbaheen aadan buu ilaahay kasoo abuuro kasoo bilaabo waa sulaala min tiin sulaalada waa in saafiya in dhooba ah oo saafiya qur-aanku siyaabo kala duwan buu tilmaamaayo min salsaal min xama'in masnuun min turaabin min tiinin inahaasoo dhammiba waa marxaladihii uu maraya un aadam waa ciid waa la qooyo dhoobay noqotay muddaa la khamiiriyey oo la dhigay ilaahay wuxuu doonay isagaa uga jeedee waa alxama'u lmasnuun waaba la qallajiyo way sanqadhoo salsaal baa la yidhaahdaa kolkaa kadib baa ruux lagu afuufay intaasoo mar sida kaniba kan yare kuwan yaryar uu dhalay sida intanoo marxaladood u marayaan ayaa dhoobadiisuna marxaladahan soo martay
inagina nudfa laynaga abuuro nudfadani waa tii isku dhex jirtay nudfada saddex qaybood bay noqotaa nudfat alab wa nudfat alum wa nudfat alamshaaj waa taa isku dhex jirta ee markaa aabihii hooyadii ee dhuumta raximka isugu timid markaa ilaahay kolkuu soo diyaariyey labadaa ayuu wuxuu dhigay fii qaraarin makiin waa makaankii hooyada fii qaraarin makiin alqaraaru lmakiin cajaa'ibkiisaasuu leeyo cilmiga xadiidkii kolka uu baadhay makiinnimadiisaasumuu ka markhaati furaya waa meel dhowrsoon riximka hooyada waxaa jaraafiin iyo bakteriya maraysaa jidhkeeda ama dhiiggeeda ama caloosheeda iyadoo cunnadii uu ka qaadanayo ma gelayaan riximka waa qaraarun makiin intaasoo jugood baa ku dhacaya islaantii urka lahay mid xagga hore laga dhuftay iyo mid xagga dambe iyo mid ay dabada dhulka ku dhufato intaasoo jugood ilaahay gaashaan buu u sameeyey ama xab ha laydha ama dhiig ha laydha ama gaashaan buu u sameeyey wax ku dhacayaa ma jiro fii qaraarin makiin ilaahay subxaana wa tacala halkaasuu ku ilaaliyay ilaa haddii uun ka dhigi lahaa wax yaroo sahlan waxaa laga yaabaa tallaabaday qaadaba inuu midi ka soo boodi lah adiga arkaya inta hawloode adaga ay qaadaysa intay culays xambaaraysa fii qaraarin makiin ilaahay baa ilaalinaya nudfadii calaqay noqotay calaqa watayna hore usoo tilmaanay suuradda hore gidaar bay ku dhegtay calaqadiina ilaahay wuu sii dhaafiyayoo waxay noqotay mudqa marka ilaa wiiggaa sideedaad ilaa wiiggaa lixaad ayay ahaanaysaa mudqada ah ilaa wasladda hilibka ah sida maaragtay cilmigan casri uu ka markhaati furayo ee ka warramaya cilm alajinna cilmiga riximka hooyadii abuurka ilmaha ilaa wiiggaa lixaad ilaa 42 cishee hore baa mudqa uu soo gaadhay mudqada waa xoogaaga hilibka ah halkaa markuu soo gaadhay ayaa mudqadii xoogaagii hilibka ahaa ayaa ilaahay waxau ihi fakhalaqna almudqata cidaama lafaanu ka dhigna intii hilibka ahayd unbaa lafaani ka soo baxeen markaad haykalkiisa eegtay iyo muuqaalkiisa waxa uu noqday 42 cisho ee hore oo 6 wiiga hore ah aakhirkeeda wiigga lixaad aakhirkiisa ayuu isu soo dhigayaa wax isa soo qoraya wiigga 7aad bilowgiisa dirxigii oo kale u egaaday haykal alcadmi alfaqari intaa yare araracdaa kore baa soo samaysanto sidaa wax dirxiga sidiisoo kale usoo kala baxay ayay noqotay waxyaabaha waxaa ilaahay u horraysiiyey lafihii iyo laxmigii lafiibuu horraysiiyey cilmiguna saasunbuu ka markhaati furay aayaddu ay sheegtay asalka ila ka aayaddu ay sheegtayba asale kan kale waa tijaabooyinoo tijaabadu marna way isweydaarataa marna sax bay noqotaa laakiin ka asalkaynoo waa kan aayaddu ay sheegtay marka alkhalaaya unugyada ilaahay uu ka abuuraya lafaha ayaa ka horeynaya unugyadu ka abuuraya hilibka kuwa lafaha imanaya iyaga samaysmaya kadibna hilibka imanaya muruqyadii iyo hilibka fakasawna alcidaama laxman wiigga 8aad ilaa wiigga 10aad baa dabeetana ilaahay uu ku dhammaystiraya haraggiisii iyo hibilkiisii iyo ilaa wiiggaa 10aad marka la gaadhaabaa waxaa bilaabmaya 3 wiig dhexdooda ama qaybtiisa horeba waxaa bilaabmaya markaa inuu indhihii iyo carabkii iyo waxaa soo bilaabmaya debnihii iyo xubnihii taranka iyo ayaa soo bilaabmaya alam najcal lahu caynayni wa lisaanan wa shafatayn saasay culimmadu leeyihiin waxaa horreynaya indhaha waxaa ku xigaya carabka waxaa dambaynaya debnaha sida aayaddu tartiibta ay u samaysay ayaa structurekiisa marka la eega iyo habkan uu samaysmayana sidaasuu u kala horreynaya taas waqti dheer bay qaadanaysaa muxaadaraad bay u baahan tahay laakiin waxaanaynu baraarujinaynaa wixii la baarbaaray inuu ka markhaati furay cilmigan ilaahay uu ka warramay cilm alajinna muddada 1400 iyo siyaadada sano ah ka hor iyadoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam microscope iyo mijhar wax lagu eego toona oo uurkaa hooyada lagu eegayo combyutar laga soo warramo midna aanu haynin ayaa qur-aankan uu akhriyay sidan uga warramaya ilmaha caloosha ku jira marka taasi macnaheedu waxa weeye kalaamkan inaanu ahayn kii rasuulka ee kii ilaahay oo ummadda uu gaadhsiinaya uu yahay taasaa uu waxyigani ka markhaati furaya fakasawna alcidaama laxman uma ansha'naahu khalqan aakhar uma ansha'naahu waanu curinoonu wuu sii laba kacleeyey isagoo abuur kale ah oo sababtan abuurkii hore la soo wadaa ilaa lafiya muruqyadii intaa la soo gaadhay markaa khalqigan kale ilaahay uu sheegayo waxay culimmadu ku macneeyeen abuurka musdawijka ah ee labaad ee jidhka lamaanaynayo ah ka ruux ila waa 2 qof waxaa tay qof lamaana abaato jidh iyo ruux baad isugu jirtaa
markaa sida kaa ilaahay u abuuray jasadka ayuu kii ruuxdiina geliyey subxaanah kii ruuxdiina waa geliyey waa khalqi labaad waxaad garanaysaa markuu qofku dhinto ee ruuxdii iyo jasadkii ay kala hadhaan ay kala baxaan ayaa macnaha dhabtii uu kuu soo baxaya markaasaa qofkan xaaladiisii isbedelaysa markaasaa wuxuu ahaa uu ka tegaya markaasaa ilaa magaciisii la waayaya markuu dhinto qofku waxaa la odhanayaa waxaa loo bixinayaa mayd baa la ydhaha isagiiyo naxashkaasoo isa saaran baa dabeetana la odhanaya janaasa labadaasoo isa saaran baa aljanaasa loo yaqaano magaciiba ruuxdii buu raacayba ma la odhanayo hebel aan aasne waxa la odhanaya janaasada ha la aaso ayaa la leeyahay waxaa halkaa aad ka fahmi karaysaa ruuxa inuu la socdo magaca iyo shaksiguba inuu la socdo ruuxa idan markaa ruuxa u baahan ilaalin uma ansha'naahu khalqan aakhar abuur kale ayaa la abuuray oo kii jasad keligii maa yamshi socon maayo uma ansha'naahu khalqan aakhar culimada qaarkood baa waxay ku macnaynayaan abuur ka duwanka xayawaanka intii hore ee mudqada ayaa waxa uu soo ahaa si uunbuu isugu duubnaa sida xayawaankuba mudqadan iyo marxaladahan uu soo marayo laakiin marka halkaa uu soo gaadhay wiigaga aynu sheegayno ilaa kontomeeyada habeen marka uu gaadho ayaa abuur kale oo ka duwankii xayawaanka ayuu gelayaa oo la yidhaahdo insaan al-insaan insaankii iyo miisaadkii uu lahaa iyo waxyaabihii aaliyadahaa ilaahay u diyaarinaya inuu caalamkan ku xukumay xayawaanada uu kaga duwanaa muuqaalkii insaanka iyo macnawiyaadkii iyo miisaadkii waxyaabihii dheeraadka ahaa uu lahaa uma ansha'naahu khalqan aakhar macnahaasay sheegaysa halkaa isagoo ku jira ilaahay ku soo diyaariyey uu kaa soo duway xayawaanka fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin uma inakum bacda dalika lamayituuna uma inakum yowma alqiyaamati tubcahuun gebagabadii halkaasay isugu biyashubatay waa dhimanaysaan waana laydinsoo noolaynaya marka waa daliilu liimaan rumaynta aakhiro daliilkeedii waa kan ilaahay baa halkaa kaa soo bilaabay halkaana kugu soo dhameeyey maxaad abuurkii hore iyo ka dambe ku kala duwaysa waa waxba weyn walaqad khalaqnaa waxaanu abuurnay fawqakum dushiina sabca daraa'iqa 7 sarood wamaa kunnaa ma ihin buu ilahay yidhi cani lkhalqi ghaafiliin khalqigayga mid ka warla oo warmoo kaga sugan ma ihi waanzalnaa min asamaa'i maa'a xagga korena biyaan ka soo dejiyay biqadarin qorshe ku socda fa askannaahu waxaanu biyihii dejinnay fil ardi dhulka wa innaa anagu buu ilaahay isagoo isweynaynayo xaq u leh calaa dahaabin bihi inaan biyahaa kaxeeyo laqaadiruuna waan karaa biyahaaba inaan weydaanba fa ansha'naa lakum waxaanu idin soo saarnay bihi biyihii jannaatin beero min nakhiilin geetimireeda wa acnaabin cinabkii leh lakum waxaa idinku sugan fiihaa beeraha fawaakihu khudrad badan oo kaiiratun badan fawaakihu kaiira khudrad badan wa minhaa ta'kuluun xaggeedaa wax ka cuntaan wa shajaratan geed baanu ku soo saarnay biyihii takhruju min tuuri saynaa buurta duuru siina laydhaa ka baxa waa geedka zaytuunka laydhaa tambutu waxay soo saartaa geeddaas biduhni wax raashinka lagu darsado biduhni wax lagu dhaashado oo la ismariyo madaxa iyo wejiga iyo jidhka wa sibqin lilaakiliin iyo dadka wax cunayaa waxay iidaan iyo ka dhigtaan koosaaray raashinka ku darsadaan wa inna lakum fi lancaam ardadii oo nicmooleyda waxaa idinku sugan lacibratan wax casharaho wax lagu qaato oo ilaahay awooddiisa lagu fahmo nusqiikum waxaanu idinka cabsiinaa idinka waraabinaa idinka durduurinaa mimaa fii butuunihaa nicmooleyda caloosheeda waxa ku sugan ayaanu wax idinka siinaa iyo sharaabkii iyo caanihii walakum waxaa idinku sugan fiihaa nicmooleyda aa ka helaysaan bani aadamow manaaficu kaiira dheefo aad u badan wa minhaa ta'kuluuna iyadunbaa wax ka cuntaa wa calayhaa nicmooleyda dusheeda gaadiidka nicmooleyda ee ishinka iyo wa calalfulki doonyaha tuxmaluuna waa laydinku qaadaa oo dadkii dergan waayeyna itaaldarre iyo yaraan kuwaasaa dusha laga saara la dhaqaajiya wakaa adilat liimaan fii anfusina wa fi laafaaq wa fi alxayawaan wa fi ziraaca wa fi lnabaat wa fi lmiyaah waa adiladii iimaanka iyo rumaynta alle subxaanah iyo awooddiisa iyo soo celinta aakhiro intaaba adiga arka dushiinna iyagoo ku sugan waxaan abuuray 7 daraa'iq daraa'iqdu waxa weeye saraha imika malaa maba garanayne berigii hore marka kabta la tolanayo waxaa la samayn jiray intaasoo sarood baa kabooluhu isa saaraya dabeedna wuxuu qaadanayaa heensatolaha intuu qaato ayuu dabeetana isugu qodbayaa liidkaa uu marinayo sarihii uu gooyuu jeexjeexay
ayuu heensotolaha isu marinaya adigaa la qabsanaya sotolahane waay kab wanaagsan buu markaa ka soo saarayaao suunkeedii sare iyo indhasheedii iyo arrinkeedii wanaagsanaa ee lagu jaqaafinaya iska wadata addaraa'ib saasoo kale weeyaanoo samooyinkuna saasay isu saaran yihiin madaaraat falakiya bay culimada casriga qaarkood ku fasiraan meerayaasha iyo majmuucaadka shamsiga ah ee isdul saaran ee isku daba wareegsan baa ay noqon karaan bay leeyihiin daraa'iqaas waa madaaraat falakiya shamsiya sida majmuuca shamsiya ay u jirta ee u kala dambayso ayaa ay noqon kartaa 7 daraa'iq si kastaba haatee waa makhluuqa cajiibka ee awoodda badan cid sheeganaysaaba aanay jirinba wax kastoo wax farsameeya arrimaha ilaahay waxay yidhi annagaa soo saarnay hana lagu daayo abwaal baanu ku xidhaynaa waanu yaro tiirinaynaa waanu qadimaynaa waa akhiraynaa lama hayo kow sahlantaa wuxuu leeyahay dabeecadunbaa haysiisay waa wax jiro ma karaye dabeecaddaa keentay kuwa ugu mulxidsan baa waxay idhaahda wamaa kunna cani lkhalqi haafiliin wakaa khalqiga intaa la eeg ee awooddiisa la yaabsantiin hadda anigu kama warli iyo waan ogahay baa ilahay sidaan u abuuray baan u maamulayaa oo wax isku dhacaya wax isweydaaranaya majmuucaadka nujuumta iyo shamsiga iyo falakiga wax isweydaaranaya isku dhacayaa ma jiro soo soco biyihiina waan soo dejiyey biqadar iyagoo qorsho ku socon waxaad haysataa roobkani inuu iska socdo un roobkani qadar ilaahay ugu talagalay iyo meel ugu talagalay ayuu ku socdaa meel walba ilaahay badda iyo beriga iyo buuraha iyo bannaanka iyo bani aadamka iyo xayawaanka intuu waraabinaya isagaa yaqaan malaga daroobiska dhibcaha dhacaya ayaa u xadidan malaga loo xil saaray hawsha fulinaya innaguna waxaan iska abaarsannayo abaar baa dhacday oo kanaa jiro oo mararka qaar baa haddaan abaartu dhici lahayn jaraafiimta iyo bakteeriyada meesha ka dilaacda cod dadkaba ay dhammayn lahayd inta abaartu ay dhammaynayso in ka badan bay dhammayn lahayd nicmatulfushuuq iyaduna hawsheeday leedahay kibirka dadka ayaaba laga yaabaa balaayo weyn inuu keeni lahaa ilaahay wixiisu qorshay ku socdaa subxaana khalqigiisa ma mooga markay dadku quustaan unbuu dhiibaya biqadar macnahaasay bixinaysaa fa askanaahu fi lardi dhulkaanu gelinay marka culimadu waxay leeyihiin arrin berigii hore laga war la'aaba aayaddu ay caddaysay diraasad kadibna lagu ogaaday ana almiyaaha aljawfiya min almiyaahi asadxiya biyahan riigu uu baadi doonaya dhulka gudihiisa ku jiro oo berigii hore la moodayay dhulku inuu asal u lahaa xagga koray ka yimaadeen oo asal u ah sidaa daraaddeed ayaa haddii aanu roobda-aynin kuwa jawfiga ee dhulka gudihiisa ku jira ee mitirada badan laga baadi doonayo iyaguna way dhammaan lahaay fa askannaahu fi lard biyihii xagga sare ayuunba xaggan galay kolkaasaa kuwaasaa lala soo baxaya ilaahay halkaa geliyay baa ku mana sheegto waxa uu ku yihi waina calaa dahaabin bihi laqaadiruun hadda inaan kaxeeyo waan karaa bal dhaabadda mucjisaadka qur-aanka waxaa ka mid a inuu ilaahay inoola hadlayo si aan cid kaleba u hadli karinba anaa kaa yeelay kaasaan yeeli doono ayaa odhan karaba dee kii yidhaahdaana wuu fashilmaya oo adhaxdu ka jabaya markiiba fashilaaddiisaa soo degdegaysa afara'aytum in asbaxa maa'ukum gawran faman yaatiikum bimaa'in maciin biyo hadday libdhaan oo riigba gaari waayo biyo la cabo oo hunguri mar layaa keenaya su-aashaasaa ilaahay uu soo dhigay maxaynu ku jawaabaynaa allahu rabb lcaalamiin allahu rabb lcaalamiin baad leedahay jawaabtaa inaad bixiso way markaa suuradda dhammayso suurat tabaari faansha'naa lakum bihi jannaati min nakhiilin waacnaabin lakum fiiha fawaakihu kaiirat waminha ta'kuluun haa waa naciim waxa weeye nakhiil iyo geetimireed khudrad badan baa ku sugan waminha ta'kuluun labadaasuu ilahay israaciyey fawaakihu kaiira waminha ta'kuluun waxaan beeraha ka baxa qaybna waxa loo cunaa raashinimo waminha ta'kuluun qaybna waxa loo cunaa khudradnimo iyo raaxaysi waa fawaakihu kaiira labadaba halkaasaa ilahay uu ka soo saaro biyahaasuu ku soo saaray waa khudraddii iyo raashinkii xubuubka ahaa ee firiga ah labadaba waxa aad eegtaa nicmooyinka ilaahay way sii kala dheeraad leeyihin mid baa si gaara ilaahay u xusay washajaratan takhruju min tuuri saynaa'a tanbutu biduhni wasibqin lilaakiliin waa saliidan la yidhaahdo saytuunta inagu saliid sayd baynu idhaahnaaye geedda ay ka baxdee shajaratu saytuunka la yidhaahdo weeye waa geed duurusiino ka baxa dabeetna soo saartaa waxaa dadku uu duhniga iyo sibqiga ka dhiganayo marka waa geed barakaysan yuuqadu min shajaratin mubaarakatin zaytuuna laa sharqiyatin walaa qarbiya
bariga iyo galbeedka dowladaha bariga iyo dowladaha galbeedka midna sheegan mayso waa mid ilaahay halkaa ku beeray oo halkaa ka bidhaamaysa saliid loo isticmaalayo intaba loo isticmaalayo marka aayaddu waxa ay tilmaantay dhaashigii iyo koosaartii iidaankii labadaba loo isticmaalaya raashinkiina waa lagu darsanaya dadkiina uu ku dhaashanaya marka duhnigu waa kan madaxa la marsanayo ee wejiga la marsanayo ee qofka dhalaalinaya ee creamka u noqonaya kaaway waa duhnigii way ku fiicanta sibqiguna waa wixii raashinka qaraxa ka biinaya ee lagu iidaamayo labada siyoodba shajaratu zaytuun haadihi fawaa'idkeeda marka ay ka warramayaan aad iyo aad bay u badantay cidiba iskuma khilaafinba qaar baa yaro xaasidiinahay oo meelahooda aanay ka bixin ayaa berigii hore isku yarday jiray dadkan diraasadda ku sameeya inay nacnacaan ay wax ka baadhaan ama wax ka sheegaan laakiin iyagiina waa aakhirkii dadkii aqoonta dhabtaa u lahaabaa la soo kacay oo xaqaa'iqeedii ka markhaati kacay cudurrada lixda ah ee dadka dhargey uguba daran ama caalamka wareeriyey baa ay dawaysaabaa la leeyahy waa macaankii waa dhiikarkii waa colestarolkii waa shilayskii ama cayilkii buurnaantii iyo waxaan la yidhaahdo sarataanka cudurkan kansarka duuya ka dumar ku dhaca ka ragga ku dhaca ka naasaha dumarka ka dhaca ku dhaca riximka maqaarka kullu daalika waxay culimmada caafimaadku ka markhaati fureen shajaratu zaytuun in ay dawayso wax kale iska daayo mar baa waxaa ku batay wakhtiyada ka mida new york iyo ereyadeeda bahalkan qumalka la yidhaahde madaxa gala injirta qandhicilka ile qolo waliba qandhicilka way soo martay gadaalunbay kuwan isu keen xariifiyeene qandhicilka iyo injirta iyana way soo mareen waa lagu ibtileeyey waa la kari waayey qandhicilkii baa reer maraykan laga saari kari waayey dhakooyinkoodii shajaradaasaa loo isticmaalay oo dhakhaatiirtu kula taliyeen in tuwaalka lagu dubo lagu seexdo dabeetana si gaara loo feedho muddo gaara lagu wado iyadoo diiran lagu isticmaalo kadib kiibaa ayaa lagu kaxeeyey ayaa ilaahay ku kaxeeyey subxaana wa tacaala waa diraasadaha ayay waxyaabaha ay dawaysi ka mid yihiin qumalkaas iyo cayayaanka gelaya madaxa almuhim ma ka baxayno waxyaabaha barakooyinka iyo khayraadka maaragtay laga sheegay saa daraaddeed baa yuhuuddu waxay aada ugala dagaalamaan reer filistiin geedkaa ay beertaan waad arkaysaayoo intay dad laynayaan yuhuuddu waxa ka badan intay geedkaa laynayaan cagaftiina way barbar socotaa madficiina dadkaa lagu ridayaa geedkiina cagaftaa la marinaya markaasaad arkaysaa filistiintii oo qaylayso le intaasoo beeroodna geedkaasaa laga gooyey intaasoo qofna way dhinteen waa dad iyo duunyay dabargoynayaan daalimiinta waina lakum fi lancaami lacibratan lacibra wax lagu qaataa xoolaha idinku sugan baa ilahay ui xoolaha xoolaha aad baynu u fahmayna shajaratu saytuun haddii waxay naga qarsooyin kuwan da inagama qarsoonaa lacibra cashar wax lagu qaato wey wax ilaahay ku bara awooddiisa ku bara mahadna kuu keena lacibra wadallalnaahaa lahum faminhaa rakuubuhum waminhaa ya'kuluun walahum fiiha manaaficu wamashaarib afalaa yashkuruun buu ilahay waxaasoo dhan bay ka heleen xoolaha may mahadnaqaan markaa nusqiikum mima fii butuuniha suuratu naxli baad ku soo martay min bayni farfin wadamin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin allahuma zidnaa walaa tanqusnaa weeye isaga ducadiisu caanaha ilaahay noo kordhiyo ha naga nuqsaamin wixii kale la cunana waxa weeye ilaahay un adaan mahad lehe wax ka khayr nagu arsaaq manaaficda faraha badan dee lama soo koobi karaba hadday dhogortiisii tahay suuratu naxli akhri dib ugu noqo waynu soo marnay waa dhogortii xoolaha waa haragiisii waa lafihiisii waa qanjaafilihii neefka wakhtiyadan dambe la gaadhay waa lafihii ilkaha waa hilibkii iyo dee isku wada dar wa minhaa taakuluun wa calayha wa cala alfulki tuxmaluun markay safar noqoto bal safar la waaye wax la raro ka war haddii gaadiid iyo wax la gurguriyo la waayo lana guurayo dadkaasi waa maxay dee meel qarfa ah oo bahgooyaabaa laga dhaqaajinaya reer miyigaa tan aada u garanaya noocan tareennada iyo diyaaradaha iyo baabuurta fuulaya aada uma fahmayaan nicmoolayda laakiin meel laga hayaamay oo la hayaamayo oo carruur yaryar iyo xoolo maqal ah iyo dad gabooba iyo waxaan socon karayni ay joogaan cidda markaa gurgurqaad hayina haysta horay buu ka dhaqaajinayaa cidina gaadhi mayso cidda laakiin aan gaadiid haysanin ama gaadiidkiisu uu layli yahay aan carruurta iyo u qaadaynin wiciyadda iyo waxyaabaha burburaya
iyo xoolaha maqasha ah isaga halkaasaa lagaga tegaya waa inuu cid baryaayo gaadiid qaad doonta gaadiid qaad baa la idhaahda gaadiid qaadka hadduu waayo halkaasaa guri caska ayuu ugu imanayaa bahalka dacwooyinka iyo waraabayaasha isweydaaranaya iyo halkaa warwarka ugu iyo walaaca ugu weyn baa markaa haysta wa calayha wa cala alfulki tuxmaluun doonyahana dee aragnayoo markay burcadbadeedii jidka u fadhiisatay ayaynu aada usii fahmaynaa wax waliba qaaliyoobeen war maxaa dhacay markabbaa la waayay jidkii baa loo galay wax waliba way isweydaarteen markabkii igshoorankii waxaasaa soconaya imaka wa calayha wa cala alfulki tuxmaluun halkan waxaa haddaba ilaahay uu ka bilaabaya subxaanah iimaankii soo aragnay aahaartiisi adiladiisii baa ilaahay uu noo soo sheegay qawaacidkii ay guuda ilaahay uu ka bixinayo dadka mu'miniinta ah namaadij min almu'miniin dadka mu'miniinta ah iyo nolosha iimaanka dadkii tusaalaha ku ahaa ee iimaankooda si qurux badan usoo xaqiijiya caalamka ee waaqica nololeed diimaha samaawiga ah qur-aanku soo khatimay waaqica nololeed si wanaagsan uga turjumay ayaa halkan ilaahay tusaalayaasha ahaa ayuu ka bilaabaya waa ambiyadii ambiyadu had iyo jeer qisaskooda ha u qaadaninuu sheeko iyo war si caadiya loo sheegayo laakiin qisasku waa waxyaabaha ummadaha qanciya qiiradana ku abuura tarbiyana siiya daliilna u noqon kara ay ku daydaan walaqad arsalnaa nuuxan markaasa iman doonta wabilaahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacala